بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسو دوادا برنامج كينا بوك أخري بوكنا كتالي خلاصة بوك عن إذن الوداق الدونو مانتا وحالي لهذا شاكادي سنغابور أي وغورتي دونيدا سدحات وغنا غورتي دونيدا كوات بوغاني وحسوس أوركي هقاميه هوري ودن كاسي سنغابور ليكوان ujeedada ugu weyn ee buugan idin la wadaagayo waxa waaye buuga wuxuu xambaarsan yahay khibrad nololeed oo wadan iyo hogaamiyahooda ku soo noolaadeen kaasoo ay ka faa'iideysan karaan wadamada qaar sida wadankeena Soomaaliya taariikh ahaan waxaan ognahay wadankaasi Singaboor waxa soo gumeysan jiray wadanka Ingriiska marka laga reebo waqti kooban oo gacanta u gashay wadankaasi Japan afti dadweyne kadib waxay heleen madax banaanidoodii kadib waxay dib ugu biireen wadankaasi Malaysia 1964 qalalaase yani ayaa ka dhacay wadankaasi oo dabada ku hayay yani cunsurka ama isirka kadib 1965 Singaboor waxay ka go'day wadankaasi Malaysia waxayna noqotay wadan iskeeda u madax banaan xaaladda markaas wadanka wuxuu ku sugnaa wadan xaaladiisu ay aad u liidato gaajo nadaafad xumo musuqmaasuq iyo waxyaabo badan oo wadanka isbiirsaday iyo sidoo kale dambiyo xisbiga la dhihi jiray People's Action Party oo hogaamin jiray ninkan yani hogaamiye oo ahaa ninkan Lee Kuan ayaa wadanka qabsaday oo hogaanka siyaasadda hogaanka u qabtay Lee Kuan markii hore waxay ahaayeen xisbi taageera ama u janjeera dhankaas socialismka ama shuucinimada balse dib bay ka bedesheen oo waxay isu bedeleen wadan yani xisbi dalkiisa iyo dadkiisa u adeego waxay raaceen si ay wadankooda xaaladiisa wax ugu bedelaan siyaasad ku qotanta laba tiir labadaas tiir oo faahfaahsan ayaan rabaa idin kula wadaagi doonaa khulaasada buugan tiirka koowaad waxay ugu magac dareen wax ka bedelida qaranka ama state transformation tiirka labaadna waxay ugu magac dareen ama yani xisbiga Lee iyo kooxdiisa ay raaceen waxay ugu magac dareen abuurida suuq dhaqaale waxaan rabnaa tiirka koowaad inaan ku hormarno oo qodobada ugu muhiimsan aan sheegno isbedelka dawladda ama state transformation waxay hoos keeneen ama ku hoos qabteen muhiimadda koowaad waxay siiyeen amniga taasoo ay ku bedeleen nolosha wadanka iyo waliba isbedel siyaasadeed dhabahna ay ku abuureen isbedelka nolosha amniga markuu sameysmo ayaa waxyaabaha kala tiirarka kale iman karaan sidoo kale waxay sameysteen oo muhiimad adag siiyeen dhanka isla xisaabtanka ama la dagaalanka musuqmaasuqa waxay ula dagaalameen qaabab kala duwan qaababka isticmaaleen waxa kamid ah waxay sameeyeen gudi la dagaalama ama dabagal ku sameeya dadka ku kaca musuqa nooc kasta ay ahaadaan haday dawladda ku jiraan iyo haday shacab ahaadaanba sidoo kale waxay sameeyeen ama macaash fiican u qoreen dadka shaqaalaha rayidka dawladda u shaqeeyo si ay noloshooda isugu filnaadaan siyaabaha sidoo kale kamid ah ay musuqmaasuqa kula dagaalameen waxa kamid ah inay lacagta kaash ahaan loogu macaamili jiray ay u bedelaan qaab elektaroonig ah taas oo sahli karto in dhammaan dabagal lagu sameeyo lacagaha meesha ay ku baxeen iyo meelaha ay mareen la sameyn karo kadib waxay xoog saareen dhisida tayada dadweynaha iyo sidoo kaleeto isticmaalka teknolojiyada iyo kaabayaal dhaqaale infrastructure adag oo ay wadanka u sameeyeen sidoo kale waxay sameeyeen nidaam lagu magacaabi jiray dhisida guryo dadweyne waxay abuureen guddiga horumarinta dadweynaha ama guddiga horumarinta dhismooyinka dadweynaha ay sameeyeen guddigaas 2 sano gudaheed ayaa wuxuu ku dhisay 25,000 oo guri waxaan ognahay bilowgii ama markii ay Malaysia ay xurnimadeeda qaadanaysay dadku waxay ku noolaayeen meelo isku raran ah guryo buushash ah iyo dhibaatooyin meel ka jiray ku noolaayeen si arintaas wax looga bedelo guddigaas wuxuu 2 sano gudahood ku dhisay marka 25,000 oo guri taas oo keentay in furfuran iyo ka dhaco wadanka dadweynahan ay helaan guryo ragaysa ayna degi karaan sidaasna ay ku abuuranto shaqo oo ay dadka ku shaqaysan karaan waxay sameeyeen sidoo kale aqoonsi dadweyne markii hore ma lahayn aqoonsi Singaboor la yiraahdo yani tiirkan oo wax ka bedelida dawladda wuxuu ku hoos sameeyay wuxuu dadka u sameeyay identity ama aqoonsi kaar ay u sameeyay si loo garto qofka Singaboreanka ah looga garto dadyooga kale taas oo qof kastan uu xaq u leeyahay inuu qaato ama uu ku qasban yahay marka taas laga soo gudbo waxay sameeyeen dhisida qaranka iyadoo wadanka Singaboor uu ka kooban yahay dad asalkooda Shiinees ah qaar Malay ah qaar sidoo kale Asian ah iyo qaar Hindiana ayaa waxa la sameeyay muhiimadda la siiyay sidii qaranka loo horumarin lahaa waxyaabaha kala duwanaanshaha dhanka yani isirka iyo dhanka diimaha oo kale waa la iska ilaaway
waxaan u gudbaynaa tiirkii ahaa dhisida suuqa ama suuq ganacsi. dhowr arrimood ay xooga saareen si dhaqaalaha wadankaas wax looga bedelo. muhiimadooda koowaad waxay ahaayeen inay wadanka laga bedelo wadan wax soo dhoofsada loona bedelo wadan wax sii dhoofiya dunida kale wax u sii dhoofiya. waxay soo jiiteen ama ay dhiirigeliyeen maalgashiga ajaanibta ama internationalka dadka ah ayagoo la tashanayo dad khubaro ah meelo kala duwan ka kala yimaaday ayaa waxay sameeyeen in sidoo kale ay free porting wax la yiraahdo ama dekadaha ay ka dhigaan in maraakib badan ay kusoo xigan karaan. taasna ay ilaa hadda ay Singaboor ku tahay wadamada ugu horumarsan ama saddexda wadan ugu horumarsan dhanka dekadaha. sidoo kale waxay dhisid nidaam dhaqaale oo aad u adag oo ay ugu horeeyaan inay sameeyaan bangiyo iyo sidoo kaleeto nidaamyo wadanka dhaqaalihiisa oo wax soo saar badan uu ku sameyn karayo ayagoo ka faa'iideysanaya ilaha dhaqaale ee wadanka uu ka helayo dibadda iyo sidoo kale fursadaha ama ilaha dhaqaale ee gudaha ka jiro. waxay sidoo kale sameeyeen ama ay degsideen shuruuc dhanka shaqada iyo shaqaalaha ah. waxay kordhiyeen saacadihii la shaqeyn jiray. waxay sidoo kale wax ka bedeleen nidaamka dadka shaqaalaha loo qaadan jiray ama looga ceerin jiray shaqada, taas oo wax badan ka bedeshay wax soo saarka dadka shaqaalaha wadanka u shaqeynayo. marka ay qaateen siyaasadahan kala duwan ee labadan tiir ee ahaa isbedelka dawladda iyo abuurida suuq ganacsi ayaa waxay dhelisay natiijada soo socota. 1965 qofka shakhsiga Singaporeanka ah dhaqaalaha soo gala wuxuu ahaa $920, halka 2000 ay dhaqaalahaasi uu gaaray qofka shakhsiga inuu soo galo 23,000. hadda tirkoobkii ugu dambeeyay 2019 qofka Singaporeanka sanadkii incomekiisa waa $60,000. 1970kii dhanka wax akhriska kaliya 70% ayaa dadka waaweynaha wax akhrin jiray waxna qori karayay, halka 1990kii ay tiradaasi gaartay ilaa 90% ee dadweynaha inay waxna qoraan waxna akhriyaan. dhanka lahaanshaha guryaha 70meeyadii kaliya 9% shacabka Singaporeanka ayaa lahaa guryo, halka 90kii 90% oo shacabka kamid ah ay gaareen heer ay guryo ku yeeshaan. isbedelkaas waxa abuuray siyaasadaas Lee iyo kooxdiisa xisbigiisa ay qaateen ay wadankooda ugu adeegeen ayay ku gaareen. markaan soo koobo waxaan dhihi karaa siyaabooyinka ay si khulaasaan u sheegi karno ay mareen ama ay ku gaareen wadadan guusha ah waxa ugu horeeyo hogaamin wanaagsan, sidoo kaleeto nidaamyo ismaamul oo furfuran oo wadanka ku hageen, aragtiyo ku qotama wadanka gudihiisa ama shacabka wadankaas u dhashay, iyo ka faa'iideysiga ilaha dhaqaale ee wadanka uu haysto kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ah. hadda wadankeena Soomaaliya oo kaleeto wuxuu leeyahay ilo dhaqaale oo ballaaran oo dibadda naga soo galo gudahana sidoo kale. haddii fursadahaas la helo hoggaan dhanka wanaagsan u hagi karo waxaan shaki ku jirin in shacabka Soomaaliyeedna ay gaari karaan miraha ay hadda haystaan mid ka duwan. aad u mahadsantihiin. khulaasada buuga intaas ayaan ku soo koobaya. buug kale aan ku talinayo oo mowduucan la xiriir wuxuu noqonayaa shuruudaha horumarka oo uu qoray qof lagu magacaabo Malik bin Nabi oo sidoo kale asigana xadaarada iyo shuruudaheeda ka sheekeynayo. halkaas aan ku soo afmeeraya. sidaas iyo kulanti dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.